sidoo kale anigana waxaan jeclahay si wanaagsan inaan u hadlay sida iyaga u hadleenba. waxaan leeyahay gaf waa dhacaa, qaladna waa dhacaa, tan iyo ambiyadoo ka dhici jiray, dibaan loo sixi jiray. waxaan isku dayaynaa wixii dhacay inaysan dib dambe u dhicin. carabi ilkaa iskugu dhow, dad waa isqaniinaan, saa ay tahayna weli waa isla shaqeeyaan oo carabka ilkaa. marka muhiimadda aan leeyahay waxaa waaye, horta walaashayda cafisay iga tahay, say ugu kalsoon tahayna aadan kaga mahadcelinaa in aniga youtube-keeda aanan hunguriyeynin, damcan iga gelaynin, kalsooni darada noocaana aysan igu qabin. anigana sidoo kale maanta youtube-keeda hadduu hawada ka bixlaa inaan soo fariisto youtube kale subscribe ii saara, or shalay adikaa ii taagneedeen maantana ii kaca inaan dhaha mooye asxaabteyda kuma soo laabanayo, waayo shakhsiyadda biniaadanka ayaa ka qaalisan application. dadkii shalay ku jeclaa oo ku taageerayay ama ku sharfayay haddayba weli nool yihiin, adigana aad nooshahay, application meeshaa ka baxay waa soo laabanaa maalintuu soo laabtaba. teeda kale waxaan raacinaa dadka nagu xiran, intii dhammaantiin waa mahadsantiin. waxaa jira qolooyin youtuber ah oo gabadha walaasheedii aniga waxaa naga dhexdhacay iisoo tubaraacay. weji majaajilana waa leeyahay, weji reactionna waa leeyahay. shalayna qurux ku dhigi la'aa, maantana qurux ku dhigi laan ahay. sida ninka ragga cadkiisa u goostana ilaahay waa i baray. reaction is a reaction, yani reactionka sidiisaba waa reaction. markay adiga kugu timaado iyo markay aniga ugu timaado, ruux walba falcelintiisuu leeyahay. marka muhiimadda waxay tahay, maanta haddaad maariish iisoo tubaraacda, wax weyn ma ahan, laakiin shakhsiyadda ninka ragga ah waxay ku qurxoon tahay in maslaxa iyo wanaag iyo walaalnimo inuu ka taliyo mooye in meelaha qaar uu wax ka raadiyo. xasha ma fiicna, wax wanaagsan ma aha, heerka raggana ma aha. marka reactionna waa jiraa, shakhsiyad wanaagsanna way jirtaa, ruux dhaqaaqayso dadnimona way jirtaa. marka qurux ku dhiglaan waa qurux ku dhiglo u taagan bulshada Soomaaliyeed inuu madadaaliyo. marka waan awoodaa wax yar dadka i jecel ama walaalaha igu xiran aan dhaha bareeg qaata, cadkaygaan dhacsanaa, kursigayga horena aan ku soo laaban karaa, wax weyn ma ah. ma fahan ii dulqaata, maanta dad baan shayddaanka ka naara, awooddeedana waa leeyahay, rabbi subxaana wa tacaalana waa isii. marka in la kala xishoodu sharafka ku jira. gabar walaashaada ah dhaqdhaq yar ka dhacday inaad wax ka raadisid, wiil walaalkaada ah waxyaabaana ka suurtoobin, mala awaal khiyaali ah, ciwaano khiyaali ah, in hunguriga uu kaa galo. hunguri meel xun hadduu kaa gala, kii kaa matajin lahaa nool. marka sharafka wuxuu ku jira in la kala xishoodo. waa idin barya walaalayaalow, hala kala xishoodo, waayo ceeb waay dad waaweyn annagoo aamusnaan heli karna in social media aan isku jijiidno, sharaf ma aha. marka annaga waqtigeena aan siino, hadiyadda ugu qaalisan aad qof bini aadan siin karto waa in walaalkaada aad ku madadaalisaa ama walaalkaada aad ugu naxariisataa. marka annagoo waqtigeena intaa ku lumi karna, hala kala xishoodo, rasaqa meel xalaal ah laga raadiy. marka walaalahayga waa idin jeclahay, sharaf iyo karaamo. sidoo kale maariish, sharaf iyo karaamo. cadnaan sidoo kale sharaf iyo karaamo. walaashayda 10 jeer aan ku leeyahay cafis baad iga tahay, waxba kuuma qabo, ceeshkaan isla soconnay haddaan ka xishoon waaye, shakhsiyadaadana kama xishoonaay, dumarnimana kaagama xishoonaay. marka cafisay iga tahay. walaalahaygana waxaan leeyahay ka waantoo waddada xun aad ku socotaan. marka dambe waxaa dhacayso gabar umul ah inaad reaction ka bixisid, naag dhalaysa inaad reaction ka bixisid, nin waalan oo familigiisa ka soo dhumay xataa inaad reaction ka bixisid. waayo shakhsiyadda maalinba maalin kasii xun ay kuu dhiibeen. marka dambe adiga naftirkaada inaad reaction iska bixisid, waa la rabaa xataa inaad ahdid. marka xishoodku wuxuu ku jiraa heerka ragga in la karaameey. aad baan idin salaama, waana hadalka waa soo xir. jaag horta qof maantay wax kugu raadinaya ama adiga views kaa raadinaya ama ma aragtay isku dayaya inuu horta wax kaa sameeyo, inaadba u jawaabtaaba bahdil ah, ma fahante. intaas inaan uga gudubno dadka isku dayaya inay anaka wax naga dhex raadiyaan, anagoonaan qof soo meenshin garaynaynin, anagoonaan qof soo qaadanaynin, ayaa intaas uga gudbaynaa. kolley qofkii
aniga isabood gareeya maantay oo markii bulshadu si khaldan ii fahanto ama aniga khalad ha iga dhaco ama si khaldan ha la ii fahmee qofkii saboot ii muujiya qofkaasi waa walaalkay qofkii iga soo horjeestana asagana waa walaalkay oo maadaama dee uu gartay inuu aniga iga soo horjeesto waa fikirkiisa anigu kuma khasbaayo maxaad ii taageeri weysay intaa markii laga soo gudbo horaan isku cafinay aniga Ajax horaan isku cafinay waxa deertaan cafis gooni ah meeshan ku fidinayna malahan kaliyana waxaan usoo kornay bulshada inaan u muujino inaysan wax caqabad ah ama wax dhibaato ama wax colaada aysan dhexdeena oolin oo sidii shalay iyo si ka fiican ba isku nahay mana rabna hadalka inaan sii dheeray ani ma jeclaysin hadalka la sii badbadiyo waxyaabo badan ay kasoo dhex bixi karaan haddii hadalka la sii wado la sii jiijiido dad badanna ayna daawanayaan waqtigooda nagu dhuminayaan waxaan jeclaan lahaa inaan intaas kusoo koobno hadalka nuxurkiisina waan sheegnay cadnaanna waa u mahadcelinaynaa maadaama uu shaqo fiican qabtay asxaabta quruxda badan oo waqtigoodana siinaysan u mahadcelinay shaqada tii ugu qurux badneed rabaa hadda inaan qabto waxyar muud ii gal waxaan rabaa marka koowaad maadaama gabadha dhankeeda aan ka socdo maadaama laigu tiranayo marish inaan dad yani qaraabo aan nahay wiilkan aad ujeediinna uu saaxiibkayga yahay walaalkii qalad kastoo dhaco waa laga soo laabtaa waxaan rabaa sidii caadiga ahayd oo dee xeerka soomaalida lagu yaqaanay inaan cimaamada ku saaraan rabaa qurux ku dhigla aad igu doontid sameynaan rabaa inaan kugu xiro aawe intuu carre maybe wuu dhacayaa laga yaabaa wuu dhacay soo laabanaya raal garan xooganaan rabnaa inaan siino waayahay marish dadka oo shams kugu qaada maxaan leenahay soo laabta maan leenahay mama iska wadaan because sababtaan kuu sheega waxaan u leeyahay saas qofkii aniga shalay soo raacay oo marish soo raacay oo go'aan leh ha ila joogo qofkii aan go'aan lahayn ha iska baxo muhiimaddu waa intaas ma fahantay qurux ku dhigla waxaa u malayaa taleefanka ka damay okay wixii ka dambeeya qosolkuu furan yahay guys jamaal soo dhow walaalkay hal ilaa maxaan leedahay waa dhawahay maha inta ku jirtona waa salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel weli way joogaan marka waxaa leeyahay soomaaliyay waxaa layidhi gacmo wada jiray wax ku gooyaan waxaa maanta annaga haddaana isjeclaan cidna jeclaanayso oo beledkan jiro oo aanba shisheeyaa maha anaa ugu sukaysaa kuro qofku jecel malah laakiin aniga dhaxdayna haddaan meel shisheeye joogno oo maanta aniga gafoorkiidoo laga tumaa qof kale i arko waxaa waaye qofka walaalka oo soomaaliga dhiigayga uu damqanaa marka waxaa leeyahay walaalayaalow waxa waaye dadkan dad ceeshi isla soo cunay oo walaalahaayeen waaye oo hal weel wax kooda cuni jireen maanta idinka waxaa arkoosiin qolofkooda arkoosiin laakiin gudahooda ma dareemi kartiin keliya waxaa dareemi kara qofka walaal leh oo saaxiib leh oo agtooda joogo marka waxaa leeyahay walaalaha intaa heshiisiin laheedeen waxaa waaye yaa la kala geenin shalay ininkii oo social media marka lagu jiro inta youtube tiyantii soo jarayseen shaaruqan iyo kaajal iyo baryaanka jabr laisku saaraya waa u sacabtumeen maantana waxaa waaye khilaaf dhinax muguu qofka soo dhex galo ma laga faa'iideysto haddana waxaa waaye gabadhan gabar walaasheena waaye maqaldamo waa allah waxaa waaye qof walboo dunidaa joogo waxaa waaye qalad wuu galaa laakiin soo u gala lama dhehee waa laga dhaqmaa marka waxaa waaye qalbigaa ka shaqeyno gacantii shalay ee ku soo ammaanayni yaa maantana ku caanin midda kale ugu dambeysaa dhaha waxay tahay youtuberada soomaaliya maanta waxaa waaye waxaa leeyahay intaasoo malyanay haystaan soomaalidao dhan ka hadlaa oo youtubera intaasoo malyanay haystaan dadkii ee shalay ay ka hadlaayeen ayakoo xogtooda ka warhayna oo maanta dhexdooda ku jiro maanta waa kaya waa dad walaala oo isku dhiig ah oo heshiis ah maanta hadda waxaa la qancinayaa dadkan meesha ku jira la qancinayaa laakiin ayaka hore heshiis u ahaayeen marka waxaa leeyahay waxaadan ogeyn yaana lasoo dhexgelin bariiskii oo meel xubniga gelin marka intaasaa leeyahay wallafaa guure gacmo wada jiray wax gooyaan si kastaba ha noqotee soo jireenka dhaqankiyo
soomaalinimada dadkaga sareynaa jeeg iyo mariish waxaa leeyahay wax fiicanaa samayseen adiga cadnaanna aadaa umahadsantaa walaalkay een hal mid aan rabaa inaan ku soo xiro maariish walaasheeda waxaan ku weydiinaa intaa wada shaqaynayni weligayga wax dhib aad iga tabanayso ma jirtaa oo dhankayga ah okay maya ma jirto maasha allah waxaan u maleynayaa qurux kudhigila barnaamijka halkaas ayuu nagu soo gabagaboobayaa kolley cimaamadana markaa kusii rabana waa dhulkaa ku dhacday si kalan kugu siinaya insha allah afwan koola isoo galay afwan wixii la maxaa la sheegay dhahay cadnaanow cadnaanow shaag wuxuu u maleeyay inaad gabar ku meerinayso wuu xishood wuu cararay may wallahi anoo kaftama waxaan leeyahay garanay seedi waxaa waaye seedi waa beer marna waa baster marka saaxiibkey si kalan kugu siinaya insha allah anoo wada kuu keenaya seedi ah okay anyway asxaabta waa salaamayaa meesha ku jirta dhammaantood walaalkii jamaal jaceyl adigana waa ku salaama walaal qaali hadal qiimo leh ugu dambeysa maariisha jeeg maxaa leedahay fariinta ugu dambeysa jeeg aa u diraysa halo cadnaan maariish yani koolla isoo galoy mishin miya jeeg waa isla weynyaa ma ila raadinoy ma ogi walaa isla weynina mayga waxaa waaye waa dadkaygii balaminooyin ninka waa isla weynyaa inay dhahaan rabaan oo male dadkii caadi ugu balaminooyin maya waa caadi waa la dareemaya qof markuu hadalkaas waxaa ku keenay xumaan ba iga aheen maya hadalkaas xumaan ba iga aheen dad badan oo dhalinyaro qaar oo waxaa arkay gabadha stress buu ku dilay oo dadaa waxay dhihi jireen hataa ma garanay dadaa waxay soo qoraayeen gabadha gaajuu ku dilay jeeg ma cunto sii jiraan waa yaabe subxaan allah war dadkaan niyaho wax yaraan iska dhahayaane maya yani alo waa lagu maqlaa saaxiib maariish aan rabaa inaan ka qanciyo inaan gabadhan walaasheeda weligeyba aan ku xadgudbay ma fahamti sax marka cadnaanow cimaamadda adigana walaalkay waa kaa guddoomay cimaamadda si sharaf leh kaaga guddoomay walaalkayga jamaal jaceylo adigana sharaf iyo karaamo maariish adigana sharaf iyo karaamo niyo hal kaftan ma ku dhihi karaa sidoo kale dhammaantiin waxaan jeclaa inaa iga qanacdeen ya si fiican adoo koofidda sii waay waa dhihi kartaa nimcada hoostaa la rabaa qosolkaaga u xiisne hal mar noo qosol hadalkaas ani inaan dhaha amay ku fiil amay ku lahayd haya maariishta waay maya hadda ma dhahayo maadaama wejigiisa aan arkay maraan wejigiisa life loo arkaya dhihi doonaa dhib ma lahane qosolka copyrightda ku xiran marka waa idin salaama ma fahad maya hal mar asxaabta hor joogta soo qabanayna ayaga ha noo qoslaan qof kamida maadaama noo qosol soo qabay hal qof soo qabanayna ha noo qoslo qosolku noo furmaa maalinta kadib marka cadnaanow cadnaan iyo maariish iyo jamaal jaceylow saaxiibkay taleefonka dhaafida wiilka dee mariishay waxaa waay aawa dahabka aawaadne cadnaanow ya dahabka maxaa waay yaa gabadha bixina cadnaan iyo maariish iyo jamaal jaceylow waa bixi karaa soo maaha in lee dhahan diidana ninkii waa cararay dadku dhibsano in lee dhahan diidana hal mar haddaan noo qosido qofsaxayna ma waa qoslaa waqti dambe waay beriya maamada inaa isbitaal geyra marka waa ka dhici rabaa waa indhaha caag i noqdeen marka waa ka
finally wuu qoslay marka khayr si wada jira maasha igu soo duceey community igu soo duceey sharaf إن شاء الله إلى عافية إلى عافية هاي يعني جاوب دمان سنة صاحب ما تنتهي كوني كوجر